معالٍ 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 intii mudnayd adaa maraye adaa aflaxo aqoon dhigayo intii mudnayd adaa maraye. bismillaah waa cashirkeeni labaad ee ku saabsan adeegsiga calculator-ka. maanta cashirkeena waxaan ku baran doonaa square and square roots. waxaan ku hormaraynaa square-ka ama jibaaranaha. sidaan wada ognahay tirooyinka la isku weerayo ama la jibaarayo isla tirada ayaa tiro laba jeer ah la isku dhuftaa. for example hadda halkan waxaa inoo qoran 6 square. marka macnaheedu waxay tahay waa 6 times 6 6 lagu dhuftay 6 answerka ay noqon doonto 36. marka square-ka waxa weeyaan tiradii oo laba jeer la isku dhuftay. marka si aan ugu shaqeyno tirooyinka noocan ah waxaan u baahanahay inaan garanayno ama calculator-keena ka garanayno square bottom-ka, kaasoo inoo sahlayo inaan ka shaqeyno tirooyinka square-ka ah. sida ku muuqata square bottom-ka wuxuu u qoran yahay x square. sida ku muuqata waa x square-ka. okay, markaan doonayna marka inaan tirooyinka noocan ah square-ka saaran example-ka noo muuqda aan ka shaqeyno, marka hore waxaan riixaynaa ama taabanaynaa x square-ka oo loo yaqaano square bottom-ka. okay, aan riixno. okay, waxay noo soo baxay sanduuq oo dusha ka saaran yahay square. marka tirada haysata oo square-ka halkan ku qorayna. example koowaad waxaan haysanaa 6 square. marka halkan 6 ku qor, square-ka dusha ka saaran yahay 6 ku qor, 6 ka riix. okay, equal 6 square. sida hore kugu soo sheegay answerkeedu waxay noqonaysaa 36. okay, example kale hadaan ku darno kana iska kasoo garayno. example kale waxaa noo qoran 25 square. okay, saan u shaqeyno waxaa marka la ku laabanaynaa square bottom-keeni. okay, aan riixno. okay, halkan dhexda waxaan gelinaynaa 25-ka 25 equal 25 square. answerkeena wuxuu noqonayaa 625. waa 625. marka 25 square san naqaan waxay ka timid waa 25 kaas oo laba jeer isku dhuftay. 25 times 25 waxay noqonaysaa answerkeena marka waa 625. marka doonaysa marka inaad calculator-ka ka shaqeyso square-ka weyga hadda ku sheegnay ama ku muuqday ayaad raaci doontaa. dhanka kale aan eegno square root-ka. square root-ka simply waxaan oran karnaa wuxuu inverse ku yahay square-ka. waxaan ka wadnaa square root-ka wuxuu cagsi ku yahay square-ka. haddii aan fiirino halkan waxaa inoo qoran laba tiro oo kala ah 6 iyo 36. haddaan falaarta kore fiirino 6 square waxayna siinaysaa sidaan hore usoo barannay 36. 6 times 6 36. okay, isla falaartan hoose haddii aan raacno 36 square root-keeda wuxuu noqonayaa 6. markaa lagu weydiinayo raadi square root-ka 36 waxa weeye waa ayo tirada haddii isla iyada laba goor la isku dhufto ku siinaysa 36 waa 6. okay, sidaas ayaan u leenahay square root-ka wuxuu opposite ku yahay square-ka. waxaan leenahay square root-ka 36 waa 6. okay, marka tirooyinka square kale noocan oo kale ah si aan u xisaabino waxaa inaga xiga oo keliya inaan calculator-keena ka garanayno square bottom-ka. square bottom-kana square root aan idhaahdo square root bottom-ka
square root button-kana wuxuu u qoran yahay sidaan ku muuqata. square root button-ka waa calaamadan hortaada ka muuqata. okay, marka exampleskan inoo qoran aan ku xisaabino calculator-keena. waxaan haysanaa example koowaad square root of 36 iyo square root-ka 625. waxaan ku hormaraynaa square root-ka 36. marka koowaad waxaan u baahannahay kaliya inaan click ku siino square root button-ka. click aan ku siino. okay, waa inoo soo baxay calaamadii square root-ka oo hadda inoo muuqatay. halka dhexdeeda waxaan ku qori doonaa oo kaliya numberka aan haysano oo sample koowaad ah 36. okay, 36 equal. okay, sida ku muuqata square root-ka 36 waa 6. okay, example labaadna aan ku darno kana isan kasal garayno asigana. waxaa haysanaa square root-ka 625 ayaana la weydiinayaa square root-ka 625. okay, square root button-ka click ku sii. halkaa waxaa gelisaa 625 waa 625 equal. okay, square root-ka 625 waa 25. marka cashirkeenana halkaas ayuu maanta ku siman yahay. waynu cashir kale insha Allah.